أنا فنان أهي مو ديا فنان ده ها انت كيسا أنت كيس أحمر كيسا هاي ما كيس بتلقوا ورث أب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صاحبي أنا كان واشرف ميديا شو فلنا هدي الجانب كو عصبتها أنا قصو بيرو سبسكرايب سارو شير لايك أنا كو خبو صاحبي أنا مانتا وحان ينسو قد بدونا أورت محايدين محايد في النسر maanta horta waxaan idin hayaa waxaad ogtiin in Astaan TV ay qabanayso barnaamijyo xiiso badan oo loogu magac daray qaraaxo si dadka loogu midadaaliyo maalmaha Ramadaanka alxamdulillah waxaan ku jirnaa tobankii ugu dambeeyay Ramadaan hadda waa gabagabo waxaan Allah subhanahu wa ta'ala ka baryaynaa in ajirkiisa uu noogu tago bishan Ramadaan maadaama ay tahay bisha kaliya Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo adoomadiisa naarta ku xoreeyo waxaan ku jirnaa tobankii ugu dambeeyay waxaan ku jiraa habeen aad iyo aad u khayr badan oo u dhiganta in haddii aad heshid leeyahay qadriga inaad cibaadeysiinaysay in la eg ilaa iyo 84 sano واتاي صاحبيال maanta waxaan wadaa barnaamijka Astaan TV ay qabato barnaamijkan waxaan ku soo qaadan doonaa fanaaniintii ugu dulqaadka badnaa isla markaana ugu samirka badnaa ugu deganaanta fara badnaa leh dabcan fanaaniin fara badan waad aragteen reactionadii ay ka bixiyeen intii barnaamijku uu socday waa laga xanaajiyay si walba la yeeleen laakiin waxaan jira fanaaniin aanan xanaaqin oo ilaa iyo hadda Astaan TV ay la yaaban tahay isla markaana dadkii barnaamij qabanay xitaa ay u riyaaqeen dadkii daawada iyagana sidoo kale ay aad iyo aad u jeclaysteen barnaamijkooda qofta ugu horeysa haddii aan ku horumaro oo ugu dulqaadka badan barnaamijkan waa gabadha lagu magacaabo Fartuun Maxamed waa fanaanad aad u daayar waa fanaanad aad u qurux badan dabcan waad aragteen fanaanada waxa isugu tagay kaamilistaha Bashiir iyo waxa isugu tagay ninka lagu magacaabo Baari isla markaas waa gabadha ma aysan xanaaqin way qosleysay iyadoo inta loo keenaa macna haddana markale dhinacna laga soo gelina qoftu waxa waaye wayba ka xanaajin way waa gabadha ugu dulqaadka badnayd barnaamijka qaraaxo inta uu socday qofta labaad kaanta labaad ee soo gashay oo anigu aan siinayo waa gabadha lagu magacaabo Xaabad Degan waa fanaanad dabcan aad u degan oo aad u cod macaan iyadana waxay ka mid tahay fanaaniinta ugu dulqaadka badnaa barnaamijka qaraaxo inta fanaan la soo deeyay waxa kaleeto aan jeclaystay inaan halkaan idinku keeno gabar oo aad u dulqaad badan xitaa gabadhaas barnaamijka markuu socdo dhaarika bixiyay macna abuu saan ma xawaasan gabadhaas iyadana waxa lagu magacaabaa Nafisanini waa gabadh iyadana dulqaad badan dhinaceeda ka wadato dulqaadka barnaamijka dadku qurxinaya ka mid tahay waa fanaanad daayar waa fanaanad qurux badan waa fanaanad samir Ilaahay u dhaliyay waana Nafisanini ayaa loo yaqaanaa واتاي صاحب البرنامج كولي وحاجنا فنانين فر بدن ولا حناجي اسلا markaana aanan xanaaqin waxaan kamid ah fanaanka ugu magacaabo Cabduqaadir Row se ogalena meesha baarid ma joogin balse Cabduqaadir Row waxa isku tagay kaamiristi inta loo keen xitaa jaakadiisa loo soo tuuray macna ninkaas isagana ma xanaaqin waa nin Ilaahay samir u dhaliyo dulqaad la siiyay ma sha Allah ugu amaanina kulena fanaan Ilaaha ku dhawro واتاي Cabduqaadir Row isagana waxa uu ahaa mid kaleeto oo aad iyo aad u samir badnaa barnaamijkan qaraaxo inta uu socday waa barnaamij aad u daawada Astaan TV barnaamijkan aad u gadanaya macna waa barnaamij aad u xiiso badan dadka daawanaya iyo u riyaaqeen qof kasta waxa ka maqlay macna fanaan hebel asaan dhaay fanaan hebel dulqaadkiisa waa la arkay fanaan hebel waa nin samir badan wataay fanaan kaleeto aan rabnaa halkan ku soo qaato وفنان اسكير حناقي بلس سمركيس وفيعن وفنان رير وفنان رير مقدشو ونور كلسوني حتى صاحب كيس على الدار صاحب كيس على الله بيها يا مكان بركاسو حراق فرب الموجي نور كلسوني سجنا ومد كلاتو برامج قراحو فنانين تكمدها او اسم كبدنا او اهديات نوسو جيتي او aad Astaan TV ay ugu riyaaqeen samirkiisi iyo dulqaadkiisiiba fanaanka ugu dambeeyay aan doonay inaan halkan ku soo qaato waa Rosa Cadde isaga inkastoo uu xanaaqay balse waxa uu muujiyay farxad waxa uu muujiyay kaftan xitaa baaridu la kaftamay mar gabadhu la kaftamay xitaa waxa kamid ah baaridu isaga markay kaftamay waxa iga yaabay waxa ma taqaana markaas waxa baaridu waxa laadi fanaannimo goormeen bilaaway macna ninkan uu qosla markaas waxa uu qoslaysaa Allah markaas waxa qoftaana iga yaabisay markay dhaad macna fanaannimada aad welle ma soo gashay waa barnaamij runtii aad u farxad badan waa barnaamij aad iyo aad xamaasadiis u wata
astaan TV barnaamijkan way ku amaanantahay dad fara badan oo ku xiran dad fara badan ayaa isla markaana daawada saaxiibayaal intaas ayaan jeclahay inaan kusoo gabagabeeyo barnaamijkii ku aadanaa waxaad sheegtaa fanaaniintii ugu dulqaadka badnaa oo ugu samirka badnaa haddii aan ka tagay barnaamij samir badan waad ii soo sheegi kartaa qaybta comment aad igu soo qori kartaa mahadsanidin dhammaantiin fadlan haddii aad aniga channelkayga ku cusub tahay subscribe garey like dan ii dheh share inaad like ama share ama aad ku qabato wax ee kaa dhibeysa ma lahan intaasna waa fanaaniintii ugu dulqaadka badnaa ee ugu samirka badnaa barnaamijka astaan TV